waxaan salaamaya dadka Soomaaliyeed waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yar oo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsana oo maalmahan wareegayay baraha bulshada arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheena maaliyadeed iyo halku marayo waxa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin oranaya khasnadaheena buuxa lacaga fara badan baa laga tegay waxyaalaha noocaas oo kala anigu runtii waxaan u qaadanayaa mas'uuliyad darro waxa kaloo tahay weheliye oo aan maqlayaa wasiir Beele iyo sidaa yidhi waxaan doonayaa dadyo Soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego la iguma baran waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idin la wadaago qasnadaheena buuxa aniguna ma odhan mana buuxaan ciddii tidhaahdana waa mas'uuliyad darro runtii sidaas ayaa xaqiiqadu tahay habkaan ku shaqaynay si aad ogtihiin kharashaad joogto ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira bil walba aakhirkeeda 25 laga bilaabo waa in kharashaad loo baahan yahay bixinno meesha doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa wax isku soo dheegdheegtaa wax isku soo xuluulaysataa 25 ciidamada mushaarkooda waa inuu baxaa waxa kale oo ogtihiin dadka Soomaaliyeed lacagta inagu aan haysano ee dakhliga gudaha inaga soo gala inaguma filla sida daraadeed mar walba shaqada finance maaliyadda ku jirto ee wasiirka maaliyadda iyo kooxdiisa ku jiraan waxa weeyaan maalin walba bilba bisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan inay suuro gasho in lacagta mushaarka la bixiyo haddaba su'aasha aniga lay weydiiyaan oo goor walba ka shaqeeyo waxa weeye bishan 25 maanta 20 weeyaan 25 June mushaarka baa la bixinaya ma bixin karaysaa haabaan ku oran bisha ku xigta halkeed marinaysaa waxba noo shaqeynaya baan ku oran ta ku xigtaana waa sida 6 bilood soo socda haddii waxa loo baahan yahay madaxayga ku jira la qabto waan bixinaynaa baan oran haddii la qaban waayo oo maalin kaliya laga seexdo lama bixinayo noqon marka runtii waxaan doonayaa arinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa in runta laga sheegaan doonayaa in xaqiiqadu waxay tahay lagu saleeyaan doonayaa anaguna runtii taasaan horena ugu taagnaa haddana aanu taaganahay in waxay runtu tahay ida kula shaqeeyo dawladda kula shaqeeyo madaxda kula shaqeeyo mas'uuliyad weyn baa ina saaran mas'uuliyadda maaliyadda mid la siyaasadayn karo ma aha anigu inta meesha joogana ma ogolaanayo haddii qof been sheego waa ka daba imanaya waana saxaya sidaasaan halkan soo galay waa mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh